bishii Juun sanadii 2022 bahal si tirabeela dadka u cuna ayaa ku fakaday baadiyaha buuraha Kashmiirta Hindiya. Shabeel ayaa tuulooyinka dhex mishaaxayay. Wuxuu ahaa midaan si gabasho lahayn dadka u ugaarsanaya, isagoo ka faa'iideysanaya xilliyada habeenkii iyo mugdiga si uu dadka u cuno. Munir Ahmed ayaa ahaa dhibani ugu horeeyay kadib weeraro isxigxigay oo shabeelku ku dhibaateeyay dadka ku dhaqan waqooyiga fog ee Hindiya. Wiilkan yar wuxuu la ku raaxayay buuraha cagaaran ee Kashmiir. Wuxuu dhex socday lo'da isagoo u sii kaxaynayay kaymaha fogfog halkaasi oo uu ku tuhmayay caws dihan. Laakiin markii la gaaray casar liiqi dhulkana mugdi soo galay, wiilkan yar waxaa kor ka daawanayay shabeel ku manay hilibka dadka. Markii la gaaray xilliga ilma qabatada ahna, dugaagu waa mid u soo dhawaanayay wiilka, isagoo dhabaxanaya, lugna kolba qaadaya, isagoo weliba isqarinaya si taxadar lehna u gaatamaya. Mar qurax ayuu ku soo orday wiilka, isagoo weliba dhabarka dambe kaga soo haaday, isla markiibana wuxuu la dhacay dhirbaaxa halis ah. Ma uusan dareemin meesha lagaga yimid iyo meel kale toona. Wuxuu ka war helay bahalka oo dusha ka saaran inta uusan luqunta jibin. Markii Munir laga waayay guriga maalinta xigtay, waxaa baadigoob u soo galay eheladiisa. Meydkiisa oo inta badan shabeelku cunay waxaa la helay subaxii dambe isagoo ka jiitay bannaanka lo'du daaqiisay, una jiitay dhanka kaynta jiqda ah. Waxay ahayd dhacdo argagax leh, qof kastana cabsi ayaa ku beerantay. Shaki la'aan, markaan shabeelku waa mid dhadhan gaara u haya hilibka bini'aadamka. Wuxuu dareemay in dadku ay ka fudud yihiin ugaarsiga xayawaanada. Habeenkii xigayna waa uu soo noqday. Wuxuu shiirinayay qof kale oo ka agdhow, isagoo doonayay inuu si fudud ula boodo. Markan waxay ahayd wiil yar oo lagu magacaabo Shahiid Ahmed oo isagana soo daajiyay lo'da qoyskooda oo dhibano u noqday bahalkan dilaaga ah si la mid ah sidii Munir Ahmed. Sidii caadiga ahaydba wuu soo gaatamayay, mugdiga ayuuna sugayay. Shabeelka ayaa geed dushii uga soo haaday wiilka markii la gaaray habeenkii, isagoo lo'da u soo kaxaynaya dhinaca gurigooda. Wuxuu ahaa mid aad u ooyaya, laakiin oohintiisu waxay ku dhacaysay dhaga aan waxba maqlin. Dadka deegaanku waxay hadda si fiican u xaqiiqsadeen in dugaagu uu si fiican ugu dhex jiro, si bareer ahna kolba qof u cuni doono harcad. Laamaha dawladda ee ku shaqale arrintan ayaa loo waxay, laakiin dhibaatadu waa mid ku sii socotay dadkan xoolo dhaqatada ah. Madaxa deegaanka duurjoogta ee gobolka, nin lagu magacaabo Rashid Nakash, ayaan si aan waxtar lahayn u sheegay in shabeelku weerari karo meel kasta iyo xilli kastaba. Dabin ayaa loo dhigay si gacanta loogu soo dhigo dugaagan dilaaga ah, laakiin shabeelku wuxuu ahaa mid xariif ah. Wuxuu shaki ka qabay dabinka loo dhigay, markastana goobtii uu wax ku dilo inta uu ka wareegsado ayuu meel kale wax ku dili jiray. Xoolo dhaqatadu waxay dareemeen in la dayacay badqabkoodana aan loo hagar bixin. Wax tallaabo ah lama qaadan ilaa dhibana saddexaad jaaniya cirib meel uu dhigay la waayay. Markaasoo la bilaabay in la ugaarsado xayawaankan dilaaga ah, laakiin xitaa markaan baadigoobka dilaagan waa ku keli dadka deegaanka. Gabar yar oo ku ciyaaraysay meel u dhow gurigooda ayuu la booday shabeelkan mar kale, wax yar ka hor inta aan la seexan xilli fiid ah. Rutba Mansuur oo 8 jir ah ayaa la jiitay xilli mugdi gudcur ah. Oohinteeda si dhaqso ah ayuu ku aamusiyey, isagoo afka ugu riday, lafdhabarta ayuu ka jibiyey, miciyihiisa dhaadheerna wuxuu surtay dhuunteeda. Waxay ahayd meyd ilbiriqsiyo gudahood. Shabeelku mar kale waa mid weerar argagax leh fuliyey. Mar kale qoys kale ayaa ku waayay inan qurux badan oo soo koraysay bisadan dilaaga ah. Bulshadiina waxay galeen baroordiiq mar kale. Meydka Rutba waxaa uun la arkay wax yar kadib. Dadkeedii jeclaa si aad ah ayay u barooranayeen markii jirkeeda wixii ka haray dib loogu soo celiyay tuulada. Xanuunka eheladeedu waa mid qof kasta uu dareemi karay, taasoo furo u noqotay in la wada ugaarsado shabeelkan hilibka dadka quuta. In ka badan 50 ruux ayaa isu bahaystay raadinta xayawaankan aan caadiga ahayn, kaas oo ay ugu magac dareen The Beast of Baramulla, taasoo macnaheedu yahay bahalkii xoogga badnaa ee Baramulla. Waxay dhigeen dabino tirabeel ah oo ay barbar socoto baadigoobkiisa kaymaha dhexdooda. Qaar ka mid ah ayaa waxay arkeen isagoo dhex maraya waddada laamiga ah ee dhex marta kaynta. Qof kastana wuxuu bilaabay inuu moobilkiisa soo baxsado oo uu sawirro ka qaato xayawaanka. Indhaha bisadu waa kuwa wirqaya markii uu toosh ka qabto, isla markiibana wuxuuba isku qariyay dhirta dhexdeeda. Inkastoo laba indhood oo kasta
ay raadinayeen bisadan ay adag tahay in la qabto amaba la arko ilaa iyo imika laguma guulaysan in gacan lagu dhigo. dadka waxaa looga digay inayan u ogolaan carruurtooda inay ku cayaaraan bannaanka markii qorraxdu dhacdo. iskooladu waxay u beddeleen xilliga la imaanayo 9 subaxnimo iyagoo ku booreeyey ardayda inay imaadaan un xilli iftiin ah. ma jirin qof dareemayay badbaado xilli aan weli gacanta lagu dhigin bahalkan dilaaga ah. maalmo un kadib geeridii naxdinta lahayd ee Rutba, shabeelku waa mid haddana dib u soo laabanaya. wuxuu soo galay deegaanka tuulo lagu magacaabo Gabalpora oo ku taala koonfurta Kashmir. waa mid shiirinaya dhiigga dadka deegaanka isagoo doonayay inuu mar kale qof cuno. wuxuu isqariyaba wuxuu indhaha saaray hadaf qaali ah. Zubayda Jaan oo 6 jir ah waxay ku dheelaysay bannaanka gurigooda xilli mugdiga habeenku bilow ahaa. qoyskeedu wuxuu dhibano u ahaa weerar shabeel kadib markii walaalkeed shabeelku qaaday bil ka hor. si mucjiso ah ayuu uga soo badbaaday musiibadaas wuxuuna u noolaan doonaa si uu uga sheekeeyo noloshiisa inta ka dhiman. laakiin waalidkiisu waa kuwo had iyo jeer feejigan. si kadis ah Zubayda waalidkeedu waxay maqleen qaylo ka imaanaysa dibadda guriga. isla markii ay guriga dibaddiisa u ordeen Zubayda ma joogto halkii ay ku cayaaraysay. si aad ah ayay ugu dhawaaqayeen magaceeda iyaguna waxay maqlayeen oohinteeda. xilliga mugdiga ah waxay un dareemi kareen bisad weyn oo canugtooda la sii cararaysa. oohinteedu waa mid sii socotay halka bahalku u sii jiidanayay meel ka fog guriga. si hambar ah waalidkeedu waa kuwo u daba ordayay shabeelka. oohinta Zubayda waa mid ay wada maqleen dadka tuulada oo dhan taasoo keentay inay ka qayb qaataan badbaadinteeda. waxay dhex ordayeen kaynta dhexdeeda iyaga oo sita tooshash. inkastoo aysan waxba si fiican u arki karin mugdiga darandaraadiis haddana waxay daba ordayeen qaylada canugta. nasiib wanaag waxay ahayd mid weli sii nool laakiin waa inay gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan si ay u badbaadiyaan canugta. shabeelku waa mid xoog badan haddana degdeg badan. labadiisa qal ee xoogga badan kuna hubaysan miciyaha dhaadheer ayuu madaxa uga qabtay Zubayda taasoo ka dhigtay inuu si fiican afka uga buuxsado. aragtidiisa habeenkii waa mid aad uga sarreysa midda bani aadamka taasoo ay usii dheer tahay isqarin heer sare ah. kaliya oohinta canugta ayaa muujinaysay meesha uu bahalku ku haysto. shabeelkuna wuxuu u baahnaa inuu aamusiiyo canugta si uu uga fogaado in la arko. dadka deegaanku waa kuwa ku dhex firxanaya kaynta mugdiga dhexdeeda si ay u soo badbaadiyaan inanta. laakiin wuxuu wakhtiga isguraba oohinteedu waa mid ka sii dheeraanaysay iyaga ilaa ay ka daaleen. waxay ku hubaysnaayeen ula iyo tooshash qaarkoodna xitaa waxayba isticmaalayeen tooshashka moobeeladooda. markaan waxay u eg tahay sida camal inay xolayaan irbad ku dhacday ceel dheer oo mugdi ah laakiin ma aysan quusan. waalidka Zubayda oo aad uga xumaaday inay tani ku dhacdo ubadkoodii labaad 2 usbuuc gudahood waxay u ahayd nasiib darro. qalbigooda ayaa gilgishay. shabeelka inta uu dhigay gabadha ayuu markan si fiican u sii qaatay isagoo weliba dhuunta miciyaha kaga quusiyey. khalaas naftu waa ka baxday Zubayda markaan. dadkii tuuladu waa kuwo qaylinaya iyagoo weliba caraysan oo oohin iyo foori isku daraya iyagoo rajaynaya in qayladooda iyo buuqooda ay argagax gelin karto shabeelka si uu inanta u sii daayo. nasiib wanaag way shaqaysatani. shabeelkii waa sii daayay inantii kaynta jiqda ah ayuuna ku dhex cararay. laakiin inta uu geed fuulay ayuu kor ka eeganayay ugaarta uu soo dishay. 2 saacad oo xiriir ah markii ay baadigoob ku jiraan dadkii deegaanku waxay dul istaageen meydka Zubayda. waxay u dhimatay qaniiyada dhuunta iyo dhiigbax zaa'id ah. wejigeeda oo dhan waxaa daboolay dhiig ka imaanayay dhuunteeda duleesha iyo dhaawacyada kale ee jirkeeda. waalidka Zubayda iyo eheladeeduba habeenkii oo dhan waxay u ahayd baroor diiq. Zubayda oo dhiig u ka tifqayo waxaa dhulka ka qaaday oo laabteeda gelisay hooyadeed. waxay ahayd dhibanihii afraad oo uu nafta dhaafiyo waxshigan hilibka dadka cuna. waxay u muuqatay in wax celin kara uusan jirin bisadan weyn ee hilibka dadka baratay. waxay ahayd mid ilaashata wixii deganaya carruurta yaryar isla markaana fulisa weerar heer sare ah. waxay ahayd mid iyadoo dhabaxan soo xamaarata xilliyada mugdiga ah. xuduudka u dhaxeeya dadka iyo wuxuushta ayaa isku dhex milmay. markii dadku ay ku soo fidaan kaymaha ay ku badan yihiin xayawaanada dilaaga ah waxay khatar gelinayeen noloshooda iyo midda dunyadoodaba. laakiin tirada dadka oo sii badanayso darteed iyo nolosha oo sii adkaanaysa yaa eedi kara qoysaskan haddii noloshooda ay ka raadsadaan xoolo ku dhaqashada iyo beerashada dooxooyinka quruxda badan ee Kashmir. reer guuraagan way ku guuldareysteen inay gacan ku soo dhigaan shabeelkii waana mid weli ka taliyay kaymaha Kashmir isagoo halkaas ku sugaya carruur kale si uu noloshooda uga dhigo qiso kale oo argagax badan.